السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وادي سلام يا دمان ولا Soomaaliyeed halkan iga daawanaya meel walba oo aad joogtaan iyo si walba oo marka ay maqlaysaanba muuqaalkan waxaan doonayaa inaan bal diiradda ku saaro oo kaliya isku xirka waxa Muqdisho ka socda waxa ay yihiin qaraxan dhacay aynu ku baraarugnay hadda la boonbooninayo laguna eedeynayo nin shakhsi ah oo shacab ah oo magaalada yimaaday arintan uu halkan ku timaada dib baan idin celin doonaa imaanshihi farmaajo iyo wax dambe oo dhacay iyo waxa hadda qaraxa keenay isku xir cajiib ah ayaa ku jira iyo qaabkii marka loo maleegay qaraxi ka dhacay SYL ayaan doonayaa balaa muuqaalkan aan ku analyze gareeno ayadoon ba u baahanaynba inaan xoga waaweyn aynu raadino ayaan idin tusi doonaa soo dhawaada meel walba aad joogtaan iyo si walba oo marka aad maqlaysaanba dhowr stage baa jira oo midba aan yar aan ku hakan doono marka ugu horeysa imaanshihii uu dalka ku soo laabtay koodii bishii March Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa la abaabulay odayaal warbaahinta ka hadlay iyo qolooyin warbaahimaha wax ku qora Facebookyada oo marka dhaqaale ku shaqeeya oo beenta sida weyn u iibiya haddana kuwa badan lagu soo daray waxyaalaha ay kooxahan iibinayeen waxaa ka mid ah in magaalada Muqdisho amni ahayd laakiin haddii Farmaajo yimaado uu qaraxyadii soo laaban doono waxay si qaas ah ay u cayimeen hoteeladii la geli jiray waa laga raystay haddii mar Farmaajo yimaado hoteeladii baa la geli doonaa sidee ku ogaadeen waa su'aal aan u soo laaban doono kooxdaani buuq badan oo tension ay kiciyaan ummadii kala ku kacday niman iska qaabilaysan oo iska caraysan ayaa inta badan aynu u aragnay laakiin waxaa jiray dad ayaga marka isticmaalaya oo qorshe ka dhax goobaya wixii ay lahaayeen wax loo soo qoray oo transcript ay ahaayeen markaynu hadda fiirino waxa aynu hayno markaynu ku darno annagu waxaan odayaashii shacabkan xamar dhibaatadii ka dhacday waa la og yahay ex control waxa ku dhimatay 1000 waxa ku dhaawacantay 1500 soobe waxa ku dhimatay 2000 4000 waa ku dhaawacantay gobolka banaadir maayirkii gobolka banaadir iyo aqoon-yahanadiina way ku meeshaas waa lagu qarxiyay cid maxkamad loo saaray amba yacni lagu eedeeyana ma jirto marka waxaan leeyahay dawladda Soomaaliya farmaajo shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimadda wajiyadooda ha kala qariso oo ha kala dababto haddii uu mar dambe asigoo boor wato madaxweynaha laga sheegaa uu wato ay sax noqoto ama uu mar dambe aan maqalno masiirkeena asigoo ka hadlayna waxaan ku baaqi doonaa mudaharaad ilaa la kala baxo la wadaayo dhowr maalmood ka bacdi inta markay dhacday ayaa mahad salaad iyo nin xildhibaan ah oo xaadoole la yiraahdo ayaa booqday checkpointyada ku hareeraysan fila Soomaaliya oo ay ka mid tahay meesha hadda la qarxiyay ee SYL oo ah iridda hore ee fila Soomaaliya markii aad fiirisaan maapkan aan soo saaray waxaad arkaysaan meesha hotel SYL uu ku yaalo inay dhowr wado oo kala duwan ay markaas soo galaan isla markaasna wadada ugu muhiimsan ay aado fila Soomaaliya oo wadada laga galo fila Soomaaliya uu hotelkan uu ku yaalo meelaha ninkaani mahad salaad iyo ninka xaadoole la yiraahdo ay booqdeen ayay checkpointsaan marka ay ka mid yihiin taliyaha hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka mudane mahad maxamed salaad oo weheliyo xildhibaan Cismaan Xaadoole oo ka mid ah mudanaasha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa kormeer ku tagay kontaroolada laga sugayo ammaanka caasimadda intan socdaalka ahayn waxaan dul tagnay sida ay ku socoto shaqada sugitaanka ammaanka caasimadda oo ciidanka qaranka har iyo habeen ay ku hawleeyeen taliyaha hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka mudane mahad maxamed salaad ayaa u kuurgalay sida ay ku socoto shaqadan su'aalo badan baa ka imaanaya booqashadan maxaa ku soo aadiyay waqtiga Farmaajo uu yimaaday isbedel miyaa lagu sameynayay marag baa la keenayay waxa mahad iyo xaadoole meeshan ay ka qabanayeen waqtigan ku soo aadiyeen xilli ay horay u abaabuleen kooxo Farmaajo ku eedeeya inuu qaraxyada fududeeyo inuu asagu amniga magaalada Muqdisho ku cayaarayo iyo in hadduu yimaado uu qarax imaan doono iyo arrimahan ayagu ay meesha ka qabanayaan isku xirka markii ay dhacayeen ma aan fahmin laakiin hadda sawir ku filan baynu ka qaadanaa tumba meesha ku jira wixii inta ka dambeeyay haddana inta aan hotelka aan la gelinin ka dambe daraad
ayaa isla ninkii la socday mahad salaad markii checkpointida la tagayay oo aan la ogeyn shaqadii checkpointida laga qabtay idantii laga lahaa laakiin aan fahmayno inay fudayn ku la socotay suuragalna ay tahay in ciidamo lagu daray meesha la keenay ciidamo laga bixiyay in rag la keenay waxa ay suurtagal tahay markii la fiiriyo dhaqdhaqaaqaasi ninka xaadwal wuxuu sheegay in muqdisho ay ka raysatay in hoteelada la galo in amnigeedu fiican yahay arrinta waxayna tusaysaa markaa in loo gogol xaarayo wax imaan doono marka la doonayo in lagu eedeeyo ninkan oo la yiraahdo waxa waxaan sheegaynay sidii aan baarlamaanka ka sheegayba amniga hoteelada magaalada wuu fiicnaa laakiin ninka markuu yimaado beddelkana yimaado joognay hoteelada la xalay shalay casarkii 10 saac la galay subaxan 4 saacna waago ku jira 6 ma gasho magaalada muqdisho ka jirtay shalay ma hal daraaday ka jirtay hadda way ka jirtay waa islognahay hay ka qabayaan wali xabadii ka soo ridow maanta laakiin magaalada sida ma isbedel ku dhacay arwa kaas ay madina ka dhax dagaalamay Maxamed ragaal u taagan oo taagan oo dagaalamaya oo maleen inay iska aad ragaal taagan ciid ma taagan dawladda shaqeynaysa madaxweynaha ugu horeeyo waa la taagan yahay waa la ilaalinaya amniga la sugaa ummadda marka inaan isag maxay boodin oo aan ku amaanaa leenahay waxaan naga rabaa marka naga dooda in marka arrintaani lagu daro ajandihii la waday ee la dhisayay qorshaha la dhisayay balan baa la dhisay inta wixii ka dambeeyay hoteelkii markii la galay maalintii shalay ahayd ayadoon arrintu aysan saacad ka soo wareeganin ayaa waxaa la bilaabay in baraha bulshada lagu baahiyo in farmaajo yimaado qarax in magaalada uu ka dhacay ay tahay wata muqdisho holcayso markii uu farmaajo u yimaaday kooxaha wararka faafinaya naftirkooda waxaad moodaa ama ay u muuqdeen kooxa sugayay oo ay u diyaarsanayd wixii ay sheegi lahaayeen kadib marka hoteelka la gala ayaa ka dhex muuqatay dhowrka stage oo kala duwan markii aad fiiriso marka iyo falcelinta ay ku dhamaanayso qorshe la dhisay ayuu ahaa qorshahaasoo markii hore ka soo bilowday odayaal la yiri hoteelada waa laga raystay qaraxyadoodii iyo amnigii magaalada uu fiicnaaday taasoo runtii been weyn ah oo la sheegay ah muqdisho amnigeeda maanta xilli uu ka xun yahay taariikhdeeda ma soo marinin ugu yaraan 8 sano ee la soo dhaafay sidaa daraadeed arrinta markii la kiciyay checkpointyadii baa la tagay wixii laga qaban lahaa baa laga qabtay baarlamaankii baa la tagay wixii la sheegi lahaa baa la sheegay hoteelkii baa la galay ka bacdina eedii baa la soo celiyay miyaysan inoo muuqan karinin oo dad wax garanaya aynan ahayn waxa sidaa isugu xiran miyaanan ahayn dad saa u fakiri karaya macaqligeena lagu cayaaraya taa waa halkaasi waa maxay ajandaha laga leeyahay dadka sida dhow u fiirinaya waxa kaliya oo muuqan karaya waxa weeye farmaajo in la mucaarado dadkan lagu diro reer muqdisho lagu diro waa dadka sida dhow wax u fiirinaya sida laakiin markaad si yar fog u fiiriso oo aad indhaha kor u qaado oo aad madaxa kor u qaado waxaad arkaysaa ajanda ka weyn ba meeshan laga leeyahay markii aad fiiriso waxa xasan ka dhax sameynaya dastuurka iyo sida dawladnimadii loo bedelay ajanda ka weyn ba ku soo baxay maxaa ku soo baxaya waxa ku soo baxaya in la doonayo in nin siyaasi ah oo aan muqdisho u dhalan ama dad si kale u yiraahdo ana hawiye ahayn inuu santa muqdisho imaanin ayaa loogu talagalay waxay muqdisho u socotaa hargeysada cusub ee muqdisho u socotaa waxa muqdisho loo xirayaa shaati reereed waxaan la doonayaa dadka aan ayaga ahayn ee hawiyaha ah inay magaalada isaga tagaan la doonayaa arrinta maxaa ka dhalan doona halkay ku dhamaan doontaa muqdisho ma u fiican tahay waa topic kale oo gooni ah oo haddii aad u baahataan aan analysis ka samayn karayo laakiin ajandaha meesha yaala ajandaha weyn ajandahaasna wuxuu saxayaa qorshaha xasan sheekh maxamuud uu wado oo dawladnimadii heshiiska lagu ahaa la burburiyay waa dawladnimadii heshiiska lagu ahaa way dhamaata waxa hadda xamar ka dhisan ee xasan hayo dawladnimo hawiye weey ma dawladnimo Soomaaliyeed ma waayo markii dawladnimadu ay dawladnimo Soomaaliyeed tahay wasiirkii amniga ku dhex jiray waa laga saaray wasiirka arrimaha dibadda waa laga saaray oo reer kale ay lahaayeen ra'iisul wasaaruhu waa inaan horay marar badan u sheegay oo aan rabin hadda inaan gal laakiin
وانين adopted child وي وان لا soo korsaday way ma aha nin marka lagu tirin karayo reeraha u magacooda u wato that's a fact kana amsalahay waxa marka meesha ka socda waa ajanda noocaaya oo yara guda balaaran waana sida uu sheegay madaxweynihii hore Maxamed Farmaajo waxa meesha ka imaan doona waa nin walba dalkiisa iska aado taasoo meesha ka saari doonta Soomaaliya resultiga ay dhali doontaa hatta sidii hore Soomaalidu u kala qaybsanayd way igala fogtaa ana amsanahay in Soomaaliya la kala gogoyn doono dadku laba qaybood bay u arkayaan maybe waqooyi iyo koonfurta naftirkeeda ayaa 10 u kala jabi doonta ugu yaraan 10 ilaa intaasoo kooxood bay u kala jabayaan Soomaaliya waxay cagta saartay wadadii lagu kala burburin lahaa wadadii lagu kala jeexjeexi lahaa wadadii aysan isugu soo laaban lahayn hadda marka dharkeedii baa la tulayaa dharka gormuud dhamaan doona markii la xirto Soomaaliya sidee loo kala garan karaya idan waa topic kale waxaan kaloon dib ka falanqayn doonaa madaxweyne Farmaajo siyaasadiisii wadaniyada ahayd ee uu ka afgaabsanayay qabyaaladda ee uu sida qurxan ummadda u shaqeynayay oo in dhalinyaro wax qabanaya uu ahaa haddii Soomaaliya ay qabiil u kala qoqoday oo la kala aaday xagee mustaqbalka siyaasadeed uu ku dambeyn karaya waa maxay talaabooyinka uu qaadan karayo waa maxay xogta laga hayo hadda waxaan aan ognahay waxa kamid ah inuu dalka isaga tagi doono oo ku laaban doono meelihii uu ka yimaaday xagee buu ku dambeyn doonaa ninka dhalinyarada ah ee ummadda ay sida weyn u taageersan yihiin arrimahan dib baan ka falanqayn doonaa laakiin si guud muuqaalkan wuxuu ahaa inaan idin sheego qarxii la sameeyay maha salaad iyo xaadoole iyo ragaas abaabulay danta laga lahaana waxa weeye in Farmaajo lagu eedeeyo ka bacdan la yiraahdo de magaaladeeni weey oo Muqdisho ay u sii xubsiibato magaalada reereed Muqdisho markii qabiilku haysteen saan ay ekay markii qaranku ka shaqeeyay saan ay ekay laamigan yaa dhisay Turki baa dhisay u dhiseen Soomaaliya u dhiseen hawiye uma dhisin laamigan kale yaa dhisay Qatar baa dhisay yaa u dhiseen laafgooyo ku xiran Soomaaliya u dhiseen hawiye uma dhisin wasaaraddan yaa dhisay oo quruxda badan fila Soomaaliya yaa dhisay aeroboorka yaa dhisay dekada yaa gacanta ku haya yaa loogu hayaa simply Soomaaliya dhiigii Soomaaliya oo la miiray baa Muqdisho lagu shuba ma aha magic reer leeyahay ma oo qurxinaya reerka anaga iska leh haddaan si kale u dhigay abgaa la yiraahdo hal magaalo oo Soomaaliya ku taala oo xataa iskuul ku yaala malaha mana degan ma la dhiso tuulooyinka ka timaadeen haddaad magic tihiin tuulooyinkii ma dhisataan awlka ka timaadeen aw al-shabaab haysto waa guurin waa empty hada tuulooyinka ma joogaan galguud wixii ka joogay waa ka guurin xal bay isugu tageen magaalan Jowhar la yiraahdo oo dadkan ku hadla afka mayga idka Soomaali baantuuga ah ama jirweynaha ay degan yihiin jira markii laga reebo intii kale to xaab isugu tagay reer Soomaaliyeed dadka la mid yihiin laakiin waxa la sheegaya waxa la dhisayo la bil abgaranayo waxa ay ahaan markaysan Soomaaliya marka sidaas ay xaaladeeda tahay Ilaahay baan weydiinaynaa wali ka quusan mayno raxmada Alle ummadeena ay dalkeena kama quusanayno in Ilaahay ummadan qabyaaladu kala qaybisay beentana faafinaysa ummadana si kala fogeynaysa Ilaahay ka qabto Ilaahay baan u weydiinaa bil Ramadaan intaasaan ku soo koobaya inta dib isaga soo laabanayno waxaan idin ka tagay si nabadino assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh